بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kula wanaagsan halka waa warbaahinta hay'adda media meel kasta joogtiin waxaan dilaynaa waqtiga ay samaado xubinteen waxaan ku soo qaadanaynaa war ku soo kordhay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. Hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ayaa wuxuu sheegay in aqoonsiga Somaliland aan ansixin looga helin xukuumadda golaha wasiirada amniga Israa'iil. Hogaamiyahaasi waxa uu maanta Isniin ah labaaxay fadeexad kala hortagay go'aanka Netanyahu ee video call-ka ku go'aamiyay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. Waxa uu tilmaamay inuu Netanyahu kulanka caawa la yeelan Donald Trump uu si cad ugu sheegay karin aqoonsiga Somaliland oo ah gobol ka go'ay dalweynaha Soomaaliya sanadkii 1991. Hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil waxa uu tilmaamay aqoonsiga Netanyahu ee maamulka Somaliland uga aqoonsan dal madax bannaan aysan ansixin midna ka helin dowladda Israa'iil ama golaha amniga ee xukuumadda. Hogaamiyahaasi oo maanta Isniin ah ka hor hadlay kulan ay yeesheen guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka ama kaniiska Israa'iil waxa uu sheegay arrintaasi. Muuqaalka warbixintiisa waxaa laga baahiyay telefishinka ama janalka kaniisadka ama baarlamaanka Israa'iil. Tani ma ahayn go'aan dowladeed ama golaha wasiirada amniga. waxa uu ahaa go'aan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Netanyahu oo kaliya ayuu yiri hogaamiyahaasi. waxaan intaas ku daray in dhowr dal oo ay ku jiraan dowladaha gobolka ay si kulul u cambaareen aqoonsigaasi. wuxuu hoosta ka xariiqay in talaabada Israa'iil ay muujinayso maqnaanshaha siyaasadda arrimaha dibadda oo isku xiran. dhanka kale hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid waxa uu si kulul u naqdiyay safarka Netanyahu ku joogo Mareykanka iyo kulanka caawa la yeelanayo madaxweynaha dalkaasi Donald Trump oo ay ku kulmayaan gobolka Florida. wuxuuna hogaamiyaha mucaaradka xusay inuusan Netanyahu haynin ajandaha aragtida Israa'iil ee arrimaha Gaza. markuu ra'iisul wasaare Israa'iil la kulmayo madaxweyne Mareykan waxaan u rajeynaa guul ayuu yiri Yair Lapid. waxaan intaas ku daray inuu Netanyahu imaanayo isagoo aan haynin aragti cad ee Gaza balse haatan ay u muuqato inay dad kale go'aamin doonaan aragtida Gaza lagu maamulayo. Yair Lapid waxa kale oo xusay haddii aysan Israa'iil soo bandhigin qorshaha Gaza jirayaasha kale oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Xamaas ayaa qaabeyn doona maxsuul ka soo baxa arrintaasi. si kastaba kulanka Trump iyo Netanyahu ee caawa ka dhici doona Florida waxa uu jadwalka qorshaha ka mid ah wadahadalkooda inay ka wada xajoodaan dhowr ajante oo ay ku jiraan arrinta Iiraan, heshiiska xabad joojinta ee laga gaaray magaalada Gaza, iyadoo kulankaas la rajeynayo in diiradda lagu saaro wejiga labaad ee heshiiska xabad joojinta ee Xamaas iyo Israa'iil ay gaareen. waxaa wejiga labaad ee xabad joojinta ka mid ah dhismaha guddi kumeel gaara oo maamula Gaza, dadaalada dib-u-dhiska iyo sameynta golaha nabadda, dhismaha ciidamo caalami ah, ciidamo dheeraad Israa'iil oo laga daadgureynaya Gaza iyo garis lagu sameynayo Xamaas. si kastaba heshiiska xabad joojinta wuxuu dhaqan galay bishii Oktoobar 10 sanadkan kadib dagaal socday muddo 2 sano oo lagu dilay in ka badan 72,200 oo Falastiini oo u badnaa haween iyo caruur. waxaana tan bishii Oktoobar sanadkii 2023 lagu dhaawacay dagaaladaasi in ka badan 129,300 oo qof oo Falastiiniin ah. daawadayaal waxaa intaas nagu dhan xubintii aan kugu talagalay ilaa kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa warbaahinta hay'adda media nabadey.